bishii August ee sanadkii 2001 waxaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer isugu yimid shir salaadinta Soomaaliland tiro badan oo kamid ah shirkaasi ayaa gabagabadiisii waxa uu ka soo baxay go'aano iyagoo la baxay markaasi amaba sheegay inay doonayaan abuurida golaha Soomaaliland ee salaadinta taas waxay ka calaysisay Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal Allah uu naxariistay madaxweynihii xilligaasi ee Soomaaliland khilaaf weyn oo curkaas ku shareeray ayaa arrintan ka dhashay arrintan oo in badan la hadal hayay waqtigaasi amaba ahayd sheekada qura ee taagneed waxa markaasi ay ku sigataba in marar badan nabadgelyadu ay faraha ka baxdo iyada oo iska hor imaadiyo iyo rabshado badanna iyo mudaharaado xidhiidh ay ka dhaceen magaalada Hargeysa iyo Burco labadaba taasi oo ku wajahneed amaba daba taagneed sheekada siyada haddaba salaadintu markay magaalada Burco si ay ugu shireen ee halkaasi ay go'aanadana ka soo saareen ayaa markii dambe madaxweynaha Soomaaliland Allah uu naxariistay Cigaal waxa uu sheegay inuu qayb kamida salaadintaasi uu ku marti qaaday Hargeysa isagoo dhowr goor uu fud isaga daba diray salaadintaasi iyagu waxay ku adkeysanayeen in dhamaantoodba la wada marti qaado haddii kale aanay markaasi imanaynin si kastaba ha ahaatee waa ay yimaadeen markii ay yimaadeen waa la isku qabsaday oo isku qabsi ayaa dhacay bal aynu eegno haddaba maalintaasi salaadintu ay Hargeysa yimaadeen iyo imaanshahoodii Hargeysa wixii ka dhacay barnaamij habeenka telefishinka ka diyaariyay haddii aanu yara milicsano waxa waa hasdan boqorka iyo salaadiinta Burco maanta soo gaaray magaalada Hargeysa iyo soo dhaweyn lagaga hortagay aw barxadle waftigan oo ka koobnaa Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cali Suldaan Maxamuud Guuleed Mire Suldaan Maxamed Suldaan Xirsiqani iyo Boqor Maxamuud Cabdi Carab ama Boqor Maxamuud Cali Carab waxa ay saaka 7:00 subaxnimo ka soo kicimeen magaalada Burco waxana ay sheegeen in si fiican loogu soo socotay halkaasi abaara 10:00 subaxnimo ayaa waxa aanu booqanay dooxa aw barxadle ka shisheeya halkaasi oo ay ku sugnaayeen in ka badan 45 gaari oo halkaasi ku sugnaa kuna sugayay sultaanta salaadiinta iyo boqorka Burco waxana gawaadhidaasi ay ahaayeen kuwa ay wateen ama ay la socdeen dhinaca mucaaradka hadii ay ahaan lahaayeen suldaamada iyo dibu habeynta SNM iyo guud ahaanba qaybta mucaaradka oo iyagu maanta soo dhaweyntii ugu ballaarnayd halkaasi iyagu lahaa markii haddaba ay soo gaareen halkaasi ee ay booqdeen salaana ay salaameen dadkii halkaasi ku sugayay ayaa waxa kamid ahaa dadkii soo dhaweynta halkaasi uu joogay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Awcali iyo mucaarad tiro badan oo iyagu halkaasi ku sugnaa waxa kale oo kamid ahaa suldaamada halkaasi iyaguna soo dhaweynta ka qayb qaadanayay Suldaan Maxamuud Axmed Sheekh iyo Suldaan Maxamed Suldaan Cabdulqaadir iyo mucaarad aad u tiro badan oo iyagu halkaasi ugu diyaar garoobay soo dhaweynta salaadiinta iyo boqorka Burco dilaamida loo haystay gaari waliba ugu socday xawsare ka dhex baxay gaariga salaadiinta iyo boqorku ay saareen oo gaariga cad ee Mustubishka geed ka baxsan wadada ayuu hoos tagay waxaana mar qura soo wada degay mas'uuliyiinta dhinaca xukuumadda iyo kuwii dhinaca mucaaradka loo tag la wada hadal geedka hoostiisa lagu buuq waxa arrintaasi ay noqotay aflagaadayn gaareen amaba gacan kidiga halka lagu guglay ama lagu marti qaadayo salaadiinta iyo boqorku waa mid kamida guryaha salaadiinta magaaladan Hargeysa ama suldaanada magaalada Hargeysa deegaankooda ah dhinaca kale mas'uuliyiinta dawladuna sida ay sheegayeen iyaguna meel kale ayay u jiidayeen halkaasi haddaba waxaanu ku gaarnay ama aanu la haleelnay in aanu wax ka weydiino Suldaan Maxamed Suldaan Xirsiqani
baabuurteenu waa meesha ka dhacday ibneedaan idinku diyaar lahayn cidda raacaysan iyo laba guri magaalada leeyihiin ka kala dugle marka gurigeetiisa diyaar ma aha waa soo dhaweyntii baa buuq ka dhacaya hay magaalada lafteeda sultan magaalada lafteeda ay waxa jira in laba guri leeyihiin kala dugle wadiya haweenka haddaba inkasta oo daawadayaal aanu ka cudur daaranayno codka su'aasha oo aydan si wacan u maqlahayn sawaxanka iyo buuqa ka dhacaya darteed waxa haddana halkii ka sii sare ee nin walba gaadhigiisa ula miciinsaday halka gaadhiga salaadiinta iyo boqorka sida uu abbaaro dhinaca bari ee magaaladan Hargeysa la soo gaaray ayaa waxa halkaasi ka dhacay is-afgaranwaa aad u qalabsanaa dhinac kastaba ha ka timaato arrintu laakiin waxa jiray in la kala baxay halkaana uu ka dhacay gacanka hadal markii afku xumaaday waxaana halkaasi gacanta isula tegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo mudane ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland Cali Sheekh Doon iyo Cabdi Cali Mahdi salaadinta faraha ka qaada war muxuu leeyahay jooga weyn helina jooga kaasi waxa uu ahaa barnaamijkii aanu habeenkaasi idinka diyaarnay oon balqadarkaasi xusuusta ah aanu idinka soo qabanay iyadoo oo salaadintu ay ka yimaadeen markii salaadintaas ay degeen ayaa xukuumadduna ay halkaasi ku weerartay xilligaasi oo hareeraha ay markaasi ka xidhay inkastoo guriga gudihiisa aanay gelin waxaana halkaasi ka dhacay ismaandhaafyo haddaba markii dhowr habeen ay joogeen ayaa waxaa xukuumaddu ay fulisay howlgal arrintaasi kullid ahaa markii saynu sheegnay ay dhowr casho joogeen dhinaca koonfureed magaalada salaad hore rasaasta ayaa isqabsatay waxaa la maqlayay waxaan fara badan dadkana dhegta ayaa taagnaatay kamaradaha telefishinka ayaa subaxnimadii halkaasi ku kalahay waxay arkeen in goobta howlgal ballaaran ka dhacay waxyaabihii isha aan ku qabanay waxaa ka mid ahaa gaadhi ay ciidanku leeyihiin oo meel jira ka laalaaday oo markaasi dadku ay ku urursanaayeen amaba ay ku xuunsanaayeen waxaana naloo sheegay inuu ahaa gaari ka mida gaadiidkii ciidanka oo howlgalka samaynayay waxaa kaloo naloo sheegay in salaadiin dhowra habeenkaasi la xirxiday oo 4 suldaan ka koobnaa salaadintaasi la xirxiday oo ahaa kuwii dhinaca burco ka yimi waxa kale oo intii howlgalladaasi salaada hore dhacay ay socdeen ku waxyeeloobay dhowr guri oo rasaasii dhacay ay dhinacyo ka dalooliyeen amaba ay ka dumiyeen waxaa kale oo iyana intii howlgalkaasi uu socday ku waxyeeloobay dad dhowr ah oo rasaastaasu ay ku dhacday haddaba bal guriga ay salaadiintu markaasi ku jireen ayaa isagana aanu gallay annagoo markaa bal wax ka weydiinay arrintoodan dhibta keentay ee iyaga iyo xukuumadda dhex taallay boqor maxamuud cali carab ayaa markaasi aanu ka warsanay wixii aada nooga baahataan ee warana diyaar baanu idinla nahay haddii aan in yar idiin kor maro waxyaalihii ugu dambeeyey annagu gobolka togdheer baanu ka nimi 4 suldaan iyo aniga ayaa ka nimi warqad martiqaad madaxweynuhu uu soo diray oo uu noo soo gudbiyey baanu ku nimi 4tayadaas meesha joognay ee warqadda ku qornaa waxay ahayd golahan salaadiinta guddoomiyihii guud afhayeenkii guud wax kasta
oo nala soo xidhiidha waa wixii golaha khuseynayay wey maadaama madaxii guud uu meesha iyaduna burcana xaruntii ay tahay loo aqoonsaday inay u tahay saldanada xarun ay u tahay fadhi inay u tahay loo aqoonsaday warqadaasaanu ku soo ambabaxnay waanu u sheegnay wakiiladii dawladda ee noo imanayey ama nala joogay waanu u sheegnay inaanu aqbal casuumadoodaga soo dhoweynay ee wadahadalkaa balse aanu la tashanayno salaadiintii kaleete ee golaha shirkaa ka qayb gashay ee wax ka soo saartay inaanu wadatashi ula kulmanno saasaanu ku soo ambabaxnay xaqiiqatan hargeysa markii aan owbarkhad la soo gaadhnay si fiican baa shacbiyaddu noogu soo dhoweysay aada iyo aada si diran oo xiisaheeda laana loogu soo dhoweeyey waanan uga mahad celinaynaa halleeyo kontaroolka markaan soo gaadhayna cutubyo dawladda ayaan ugu nimi oo wasiira runtii markiiba waxaa noo muuqday aragti baa noo muuqatay maxaa yeelay soo dhoweyntu waa caadi cutubyo ciidan baa noo muuqday iyo gaadiid ciidan oo boolis baa noo muuqday wixii markii laga soo dareeray qas iyo rabshad dhacayna waa la wadoogaa runtii aniga markaasay ii caddaatay wixii aanu u soconnay inaynan hargeyso oolin oo waxa hargeyso yaalla ay yihiin dil iyo xabsi bayna yaallaan markaasay ii caddaatay tallaabooyinkii halkaa laga qaaday bay iigu muuqatay xaqiiqadii waanu isu nimi qoladii boorama aan u yeedhnay iyaguna waa yimaadeen si fiican oo nabadgelyolay ku yimaadeen fadhiga iyagii ugu horreeyey ee casuumadaas dawladdu ay fidisay sidii loo qaabili lahaa ayaanu yeelanay shalay iyo daraadna waxaanu go'aansanay fadhiga iyagii in somalilan aynan u baahnayn qas iyo burbur iyo cid eed laga saara inayn u baahnayn cid eed laga saaraa hadday jirayso cidda soo baxda ha noqoto innagu haddaynu saldanadnahay awoodda aynu leenahay ee dadku inoo caleema saaray waxa weeye waa nabadgelyo iyo xasilooni taasaanu isku gacan saaray ku go'aansanay in nabadgelyo wadahadal wax allaale wixii khilaaf jiray wadahadal in lagu dhammaystiro waad ogsoonaydeen beryihii dhoweyto baarlamaanka wixii ka socday waad ogsoonaydeen go'aanadii ka soo gudbay waad ogsoonaydeen sidaynu kala xidhxidhannahay ee kooxa taas waa koox hebel iyo waa koox hebel iyo waa koox hebel loo leeyahay war waxaas waxaan wax ku noqon karaa iyadoo laysu furfuro oo marba maamulkii joogana la gacan siiyo nabadgelyo wixii khilaafka joogana lagu dhammaystiro iyo wadahadal sidaasaa go-aankayga noqday shalaytana aanu ku gebagabaysanay wixii wadahadalku siduu u dhici lahaa iyo qodobadii wadahadalka iyo waxaan aragti annaku masaalix xumadeed u arkanay ayaanu ku dhammaysanay waxaa berber socday dagaal saxaafadeed oo ilaa maalinta shirkaa la qabtay xubnaha dawladdu hadday wasiira yihiin iyo hadday maayire yihiin iyo hadday maxkamada yihiin giddi ay wadeen baa socday oo berber socday waxaa dhegyaan loo jalaqsiin waa fidma abuur baanu arkanay wixii aanu annaku ku nimi wixii aan go'aansannay wixii aanu u gudbinay jaraa'idka intaasay ahayd wixii ilaa xalay dhacayna waa waxaad idinkuba markhaati ka tihiin oo ka fog oo ka foolxumo badan wixii ay taliskii horeetay qoriga loo qaatay ay wadi jireen wax ka xun ayaa magaalada xalayta ka dhacay maato guryahoodii lagu weeraro rasaas guri gudihii inta la galo ciyaal iyo maatay huruddo oo aan loo aaba yeelin waxay doontay ku dhacdo rasaas suuqa laga furo ciddii ay doonto dhaawac iyo khasaare iyo waxay doontaba gaadhay guryaha oo si xoogle loo dumiyo oo lagu dumiyey gaadiid dabada albaabada loogu xidhayo iyo gaadiid gidaarka loogu dhufanayo intaba ay suuragal noqotay madaxdii dhaqanka ayaad ogsoon tihiin oo iyaguna la xidhxidhay waxyaalaha ilaa xalayta dhacay
sabab la'aan hanjabaaddii oo ficiliyan isu rogtay weeye hanjabaaddii intaa dawladda ka socotay oo ficiliyan isu rogtay weeye madaxdaa dhaqanka lagu xidhxidhay xalayto shantaa nin ee hadda inta aanu naloo sheegay guryahoodii lagala baxay dee xogogaal baa ka tihiin dee sida wax u dhaceen waa sidaas wixii kaleeto weydiin dee ana waynu na weydiinaysaan wixii aan jaraadka u gudbinayna waa ku qorayihiinoo dee cid walba way aragtaa golahan saldanadeed golo cid ictiraaf loo weydiinaya maaha waa golo daa'iman soo jiray haddana jiri doona haddii ilaahay uu ina gaadhsiiyo dawladda ictiraaf golahanaa siiya maaha dawladdu golahan ictiraaf iyadu ma siiso dawladda golahanaa ictiraaf siiya waa ilaa iyo markii uu soo jiray xayaatada kaasina muuse bixi ayuu ahaa waxaa maalmahaasi ahayd mid aad iyo aad indhaha loogu hayay gurigaasi salaadintu ay ku jireen oo xukuumadduna ay dulgeysay ciidan adag oo ay ka mid yihiin taangiyo iyo tignika kale halkaasi oo ahayd meel xero militari noo dhow oo inkastoo gurigaa gudihiisa aanan gelin haddana guryo kale salaadinta qaar ku jiray ay ka qaqabtay sida halkan aanu idinka soo gudbinay waana 2001dii bishii August oo ahayd xurguftii ismaandhaafkii dhex maray dawladda Soomaaliland ee waqtigaasi iyo salaadintii shirka ku qabatay magaalada Burco ee markii dambe dhinaca Hargeysa u soo wareegtay dad badan oo kala duwan ayaan arintaasi kala kulanay waqtigaasi oo ka hadlay waxaa ka mid ahaa gudoomiyihii golaha guurtida ee hore geeriyooday Allah naxariistay Sheekh Ibrahim الله ساعتها ما فيليا كل يا برعو الله ساعتها ما فيليا وحكى سوق قوتي وحاول أنا بعد ذلك قلت إنه وحنا إلى أنا بتقليه وحنا بتقليه ده سيبه قول لي ما موكل مرة واحد لنا أنا أقول بتقليه أنا أنا أردت أقول بتقلينا ما أنت قلك تبقى إحنا قلينا أفر ساعة talabadan xilxilista xalayto ilaa afarta suldaan lagu xidhay xukuumaddu mowqifka goormay qaadatay Sheekh Ibrahim daan xukuumadii bay horta aan guursi baan kowle laakiin xukuumaddu waa inay qaadato talaabo haddii ay wax dhacaan marka iyada qaadatay talaabo doqsay qaadatay warmaayo ka goliinu ku taageersan waa ku taageersan haddii wixii nabadgelyo xumaanaya iminka waxaa socda in xal dhaqdhaqaaq lagaga hadlayo waan marka waantaasi sidee bay u soconaysaa waanti ma waxa weeyaan in nimankii si nabadgelyo loo soo xidho lagu xidho mise in arrinkaba nabadgelyo lagu dhameeyo oo si kale loo rogo waxa weeyaan arrintaasi si alla sidii aanu waan ku helayno ayaanu gelayna hadday xal noqoto hadday waan kala noqoto hadday waa hadal noqoto anagu waxaanu diidanahay in xabadi dhacdo dabcan xabadiina xalay way dhacday tod dambe inay dhacdana ma rabno iminka halkan diyaargarow baa nooga muuqday in tignika wasaaradda gaashaandhigii difaacu ay soo ururiyeen iyo kaarayaal markaa taa lafteedu miyaanay xaaladda sii arbusheenoon laga qaadanayn dareen kulol waxaa malaataa ayagu hadday xoojin samaystaan waxba ma laha oo ceeb ma laha laakiin waxaanu ilaalinaa inay xabadi dhacdo ayaga in dowladda xabad ridana ma rabno kuwan in wax ridaana ma rabno meeshan waxaan doonaynaa in gacan lagu qabto maxaan ku nabadgelyo cabdulaahi xuseen imaan cabdulaahi dirawal ayaa isaguna isla maalmahaasi arrinkaasi ka hadlay way ka tashatay macquul way noqon weydi marnaba in la yidhaahdo maxaa la yidhahaa dee xaafadda ummadda dhani ay degantay in la yidhaho weerar lagu qaado oo dawladda lagu qaado laakiin culays waa la sameeyey culays dee waa la saaray laakiin marnaba may dhicin go'aan la yidhaa go'aankaas lagu dhaqaajiyo maxaa waxa meesha ku jira la jiiro la soo qabto wax runtii dee mamnuucay bay ahayd oo lagu qanci waayey in meesha noocaas oo kale ah ee waxaasoo maatii joogto in maxaa la yidhaa ay dee wax dagaal laga rido amba laga dhaco dawladduna iminka kuma la tala jirto mana filayno inay naga soo baxayso in la idhaha dagaal ha lagu qaado oo xaafadoo dhan la weeraro laakiin waxaa jira dad doonaya dagaalku inuu meesha ka dhaco
oo inamada yaryar ee meesha jooga habeenkii u yimaada oo yidhaahda annagaa rag idiin hayna ee bahasha bilaaba uun idinku ma yahayn hargeysa oo keliya laakiin magaalada burco ayaa lafteeda arrintan dareen weyni uu ka dhashay waxaa ka dhacay hargeysa iyo burcaba mudaharaado qaarkoodna lagu taageersan yahay arrintaas salaadinta xadhigooda qaarna lagaga soo horjeedo taasi oo macnaheedu yahay in labada dhinacba lagu kala taageersanaa magaalada burco ayaa waxaa ka dhacay mudaharaad lagu diidanaa xadhigga salaadiinta oo gaadiid tiro badan sida idin muuqataa magaalada lagu dhex maray iyada oo markii dambena la isugu yimi bartamaha magaalada burco halkaasi oo hadallo ay ka jeediyeen xubno mucaaradka ka tirsanaa iyo weliba dad kale oo halkaasi isugu yimi iyo abwaaniin waxaa balaynu soo qaadan doona haddana halkaasi uu ka yidhi maxamed ibraahim warsame hadraawi laba kelmadood mudaharaadka dhacay iyo xamaasadda iyo dagaalka iyo baneerka aan qarsoodiga ahayn aynu ku xoojinno laba kelmadood oo dadka dareenkiisa ah oo xoojiya ujeeddada maanta loo soo bannaan baxay ma garanayo dawlad lala dagaalamayo wax dawlad la yidhaahdo iyo nidaam dhisan oo lala dagaalamaya ma jiree nin cigaal la yidhaahdo aynu ismaqallo eeg nin cigaal la yidhaahdo oo gurigiisa baksigiisa hurdada ku maxbuusa weeyaa ninka aynu maanta u jeednaa rugihii shacabka iyo tirarkii ummaddu lahayd iyo danaha ummaddu ma aha nidaam ku dhisa shacabka iyo danaha shacabka kuma taagna tirar ummaddu leedahay iyo danaha ay ummaddu leeyihiine udub xargalay ayuu ku taagan yahay waxaaba odhan lahaa dagaalkeenna intalada ku filan maantee bardarteenna aynu dib u dhiganno kaasi waxau ahaa mudaharaadkii salaadiinta lagu taageersanaa xukuumaddana lagaga soo horjeeday burco ka dhacay hadraawi ayaanu ahaa ninka ad arkayseen waxaa garab socday mudaharaado kale kuwaasi liddu kuwe ah oo dabcan nidaamna ogaada waxaana idinla hadli doonaa duqii caasimadda oo kelmayda odhan doona waxaan se idinku waaninaya waxaan walaalayaal idinku waaninayaa waxaynu haysanaa wax ciyaar ku yimid maaha waa idinkaan bayatiina garaacaysay kii oo kalea la doonayaa inay timaado adduunkii bayna soo galay mu'aamaraadkii bayna soo galay lacagtii cartayna soo gashay caqligoodii bayna soo galay hadaan idinkana waxaan idinku wareejinayaa duqa caasimadda bismillaahi raxmaan raxiim waxa murugaday gelinayaana waxa weeye wixii laydin baday ee ilaahay idinka abaal guday waxa haddana lagaga jawaabayo waxaan idiin sheegayaa mar walba inaynu noqonno maaha sida xumbada marna karta marna daqiiqana ku baaba'da dalkan ma
markii 60kii laga soo bilaabo xorriyaddii khasaarihii naga soo gaadhay kii dambe oo aan la qiyaasi karin da'aroortiinan yaryar baa loo soo wada dhintay oo loo soo dagaalamay nin walbana cimrigiisii wixii ugu qurux badnay waxay ku tagtay inuu xoraynta dalka ama tii hore dagaalamay oo abaalkiisu ma ahaysa waa aayad qur'aana odayaal markii laga dareeray xarunta khayryada ama fagaaraha khayryada ee magaalada hargeysa ayaa waxaa ardayda dugsiyada iyo dadkii kale ee la socday ay socod dheer ku soo mareen waddada weyn ee bartamaha magaalada hargeysa marta inta u dhaxaysa khayryada ilaa xarunta madaxtooyada halkaasi oo ay socod dheer ay ku mareen iyagoo banaanbaxaasina ay ku taageerayeen xukuumadda somalilan iyo mowqifkeeda ay ka qaadatay arrinta salaadiinta siaad u arkayseenna khayryada magaalada hargeysa ay halkaasi kala hadleen xubno ka tirsan xukuumadda oo uu ka mid yahay duqa caasimadda hargeysa cawl cilmi cabdalle iyo guddoomiyaha udub ee gobolka waxaad moodaa qadiyaddu inay ku socoto sidii ilaahay ugu talagalay 40 sannood baa laga cunay carruurta inay yaroo gebgebleeya oo gebgebleeyo ama wuxuu doola ahaada oo gees kale u jeediyaa socon maayo xaqaa taagan somalilan ha noolaato ha noolaato ha noolaato ha noolaato soo dhaafay ee aynu ku guda jirnay ma koobi karno xurguftaasi xilligaasi taagneed ee xagga siyaasadda oo aad iyo aad dareen weyn uga qaatay dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba dadka reer somalilan meel ay joogaanba waxay ahayd midii laga soo gudbay balse aynu xusuusta taariikhda iyo waayihiina soo maray iyo dharaaraha kala duwanaa iyo maalin walba waayaheedii aynu qayb ka mida halkan kaga soo qaadannay dadka ka hadlay way fara badnaayeen weerarada iyo weerar calisku ma ay yareen sidoo kale waxaa aad u badnaa hadallada laga yidhi meel kastaba ha noqotee waxaa jiray guddiyo dhexdhexaadina oo culimmada iyo ganacsatada ka mid ahaa oo isaga dab qaadayay xukuumadda iyo qolyaha salaadiinta ahayd oo iyana halkan aynan ku soo koobi karin waxaa kale oo jiray bayaano meelo kala duwan ka soo baxayey oo ay ka mid ahaayeen meelahay ka soo baxayaan golihii wakiilada oo baad amaba dhambaal aad u kulula arrintaasi iyana ka soo saaray guurtidaa ka hadashay dadka kale siyaasiyiinta ayaa ka hadlay culimmada ayaa ka hadashay dadka ganacsatada ayaa ka hadlay aad ayaa hadalhayntu ay u badnayd iyada oo markaasi dhexdhexaadintuna ay ahayd mid kolba lagu kala kacayay oo laisku afkarin waayay hase haatee dib haddana laisugu soo nuqanayay iyadoo gabagabadiina arrintaas ay noqotay mid aakhirkii soo aftiirantay balse markii ay socotay ee arrintu ay kululeed aynu eegna bal madaxweynihii xilligaasi allah u naxariistee ee ay salaadintaasi isku hayeen xagga siyaasadda maxamed xaaji ibraahim cigaal oo si ballaadhan uga hadlay taa lafteeda rag ay sheeganayaan wakiil suldaan iyagoo suldaan reerka ay ka socdaanaan lahaynba isku hayeen xagga siyaasadda maxamed xaaji ibraahim cigaal oo si ballaadhan uga hadlay taa lafteeda rag ay sheeganayaan wakiil suldaan iyagoo suldaan reerka ay ka socdaanaan lahaynba suldaanka reerka ay ka socdaan isagoo suldaan lahayn ayuu ku fadhiyaa meesha suldaan wakiil suldaan ciduu ka wakiil yahay lama sheego waxaa kaloo jira afdigni laba iyo toban nin oo kuwii maxay soo jireenka ahay salaadiintii dalka ayaa iyaguna balaas soo saaray iyagoo qori soomaysaa nimanka halka joogaay ayaa soo saaray oo nin waliba dhintooda badan ay ku tirsanayso suldaan hebel suldaan hebel suldaan hebel saddex qaar afar ay ku tirsanayaan oo raggii soo jireen tahay ayaa soo saaray iyana balaas arrinka ka soo horjeeda la-aantood koox yar oo kale oo maxay sheegataca ma ay samayn karto maxay haydee urur dhaqameed madax dhaqameed ma ay samayn karto haddayna koox baanu nahay madax dhaqameeda
oo iyagu urur samaysanaya ictiraafna oogama baahna waxa weeye ma dimuqraadiya xoraba ayaa jirta laakiin waxaan ahayn baad sheegi karay haddaan tidaaho anaa ra'yigayga dhiibanaya wax ku diidi karaa ma jiro laakiin haddaad tidaaho dagaal baan u hadlayaa ra'yigii dagaal baan anigu bixinaya dee xaq uma jiray soo maha xaq uma jiro marka taleesku hayaa waxa weeye yaad u tahay madax dhaqameed haddii guuska la iskaga qaado oo la yidhaha madax dhaqameed baan ururkii madax dhaqameed dee markaa inta ka maqani weliba soo jireenkii madax dhaqameedyada laga taxaday mudee waa marka anigu waxaan ra'yi mabda ayagu yahay ayaa ma ra'yiga iyagu yahay mid loo dhan yahay waa inuu mid loo dhan yahay waa taa yani marka loo dhan yahay yani waxaa ta saddexaad waxa weeye ururka talaadiin iyo ama ubaash wuxuu samaysmi karaa marka loo dhan yahay in dadka magacaa sheegtaa u dhan yihiin laakiin intii kale haddii ay in yari doonayso inay samaysato dee waa inay kooxda ku sheegaan qof iskuma sheegi karaan masalan maxaa yidhi dadka loo hadlaya waa sida axsaabtoo kale xisbiga anigaa kulli somaliland oo dhan u wada hadlama jira kolba dadka intii doorata ee voodkeeda ayuu hadlaa xisbigaas u hadlaya waayahay ka afraad hawsha salaadiinta dee si aynu ku naqinay dhaqankeenna iyo maxay haydee curfigeenna iyo maxay haydee nolosheenna aynu ku naqinay abnololeedkeena aynu ku naqinay oo si ballaaran uga hadlay taa lafteeda rag ay sheeganayaan wakiil suldaan iyagoo suldaan reerka ay ka socdaan aanu lahaynba suldaanka reerka ay ka socdaan isagoo suldaan lahayn ayuu ku fadhiyaa meesha suldaan wakiil suldaan ciduu ka wakiil yahay lama sheego waxaa kaloo jira ay sheeganayaan wakiil suldaan iyagoo suldaan reerka ay ka socdaan aanu lahaynba suldaanka reerka ay ka socdaan isagoo suldaan lahayn ayuu ku fadhiyaa meesha suldaan wakiil suldaan ciduu ka wakiil yahay lama sheego waxaa kaloo jira laba iyo toban nin oo kuwii maxay soo jireenka ahay salaadiintii dalka ayaa iyaguna balaad soo saaray iyagoo kuli soomaysa nimanka halka joogaay ayaa soo saaray oo nin waliba intooda badan ay ku tirsanayso suldaan hebel suldaan hebel suldaan hebel saddex qaar afar ay ku tirsanayaan oo raggii soo jireenta ahay ayaa soo saaray iyana balaad arrinka ka soo horjeeda la-aantood koox yar oo kale oo maxay sheegata ah ma ay samayn karto maxay hayde urur dhaqameed madax dhaqameed ma ay samayn karto haddii la koox baanu nahay madax dhaqameeda oo iyagu urur samaysanaya ictiraafna oogama baahna waxa weeye ma dimuqraadiya xoraba ayaa jirta laakiin waxaan ahayn baad sheegi karay haddaan tidaaho anaa ra'yigayga dhiibanaya wax ku diidi karaa ma jiro laakiin haddaad tidaaho dagaal baan u hadlayaa ra'yigii dagaal baan anigu bixinaya dee xaq uma jiray soo maha xaq uma jiro marka taleesku hayaa waxa weeye yaad u tahay madax dhaqameed haddii guuska la iskaga qaado oo la yidhaha madax dhaqameed baan ururkii madax dhaqameed dee markaa inta ka maqani weliba soo jireenkii madax dhaqameedyada laga taxaday mudee waa marka anigu waxaan ra'yi mabda ayagu yahay ayaa ma ra'yiga iyagu yahay mid loo dhan yahay waa inuu mid loo dhan yahay waa taa yani marka loo dhan yahay yani waxaa ta saddexaad waxa weeye ururka talaadiin iyo ama ubaash wuxuu samaysmi karaa marka loo dhan yahay in dadka magacaa sheegtaa u dhan yihiin laakiin intii kale haddii ay in yari doonayso inay samaysato dee waa inay kooxda ku sheegaan qof iskuma sheegi karaan masalan maxaa yidhi dadka loo hadlaya waa sida axsaabtoo kale xisbiga anigaa kulli somaliland oo dhan u wada hadlama jira kolba dadka intii doorata ee voodkeeda ayuu hadlaa xisbigaas u hadlaya waayahay ka afraad hawsha salaadiinta dee si aynu ku naqinay dhaqankeenna iyo maxay haydee curfigeenna iyo maxay haydee nolosheenna aynu ku naqinay abnololeedkeena aynu ku naqinay waxa weeye waxay ku kooban tahay hawshaas salaadiintaas sidii ay beerihii ay suldaanka u ahaayeen dantooda iyo nabadooda iyo wixii cid kale ay kala gaadha sidii ay ugu talin lahaayeen taladeed ay u maamuli lahaayeen arrinkooda ayay leeyihiin ayay maxay hay leeyihiin
كشنات وحوية قوان في شفتي أي لحظة لما فورك كل القرين وين الباب يا مرة عشان الباب هاي الانتخاب كان يستدعي وقت شربيات على الصغير كان إلى جنوب داوي وهاك كاسنا وحوها الله نحرسته محمد حج إبراهيم عقال